wararka ka imaanaya gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya gaar ahaan degmada Guriceel waxa ay soo sheegayaan in ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliya iyo kuwa Galmudug ay maanta weerar ku qaadeen dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab oo gaaray deegaan hor leh oo ku yaala degmada Guriceel ee gobolka Galgaduud. goobjoogayaal ayaa ku soo waramaya in dagaal culus oo ka socdo gobolka gaar ahaan degmada Guriceel. wariyaha idaacadda kulmiye uga soo warama Galgaduud Maxamed Cabduuli Tooxo ayaa ka wareysanay. وماسنتها محمدو deegaanka dhagaxyaale qiyaastii 50 kilomitir u jira degmada Guriceel wararkan keenin waxay sheegayaan in dagaal uu ka socdo isla markaana u dhaxeeyo Al-Shabaab iyo waliba ciidamada Galmudug waxaana dadka deegaanka oo la xiriirnay inoo sheegeen Maxamedow in saakadii hore deegaanka yimaadeen Al-Shabaab kadibna uu yimid dagaalka markii Al-Shabaab deegaanka yimaadeen ciidamada Galmudugna ay gaareen la iskana hor yimid qasaaraha rasmiga ah ee dagaalka imika ka soconaya deegaanka dhagaxyaale ilaa iyo hadda wax ogaan karaya ma jirto maadaama deegaanka xabadu ay ka jirto dadkii deegaankana ay ka barakaceen colaado ka jira awgood xaaladuna waxay tahay iminka mid dagaal waliba dhagaxyaale oo kaliya kama jiraan xiisadaha dagaal ee u dhaxeeya Al-Shabaab iyo ciidamada Galmudug waxaa jira deegaano hoostaga deegaankaasi oo dadku ay intooda badan ay ka cabsi qabaan in dagaal u dhaxeeya Al-Shabaab iyo ciidanka Galmudug ay ka dhacaan. waaya marka tooxow dadkan ama shacabka ku nool deegaankaas ay u qudbeeyeen Al-Shabaab waxay u sheegeen maxaan ka ognahay Maxamed waa maadsan tahay ilaa iminka lama ogaan waxyaabaha dadka ay kala hadleen markii deegaanka ay yimaadeen Al-Shabaab oo ay dadka xitaa isku soo barakaciyeen ay u qudbeeyeen laakiin waxa durbadiiba dhacday in ciidamo ka tirsan Galmudug oo deegaanka sidaas aan uga fogeyn inay gaareen goobtii Al-Shabaab ay yimaadeen dabeetana halka dagaalku ka dhacay waxaan la xiriiray qaar ka mid ah dadka deegaanka inkastoo qaarkood anteenadu ay ku xumeed halka qaarkoodna markay ay dhacday ay sheegeen in dagaalku iminka uu soconayo magaalada ay ku sugnaayeen ay ka barakaceen dadkii oo ay ka soo baxeen colaadaha iyo sidoo kale dagaalada ka jira deegaanka dhagaxyaale oo in muddo aysan shabaab imaan laakiin si iminka markay yimaadeen ay kala kulmeen dagaal ciidamada ka tirsan Galmudug. wariyaheena Maxamed Cabduuli Tooxo oo dhuusmareeb jooga ayuu kaasi ahaa. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa u ambabaxay dalka Talyaaniga kadib martiqaad rasmi ah oo ka helay dawladda Talyaaniga. madaxweynaha iyo madaxda dalka Talyaaniga ayaa ka wada hadli doona dib u xoojinta iskaashiga iyo xiriirka labada dal ee dhinacyada siyaasadda, dhaqaalaha iyo amniga. sidoo kale labada dhinac waxa ay isla lafaguri doonaan danaha kala gedisan ee ay wadaagaan labada dal iyo sidii looga miro dhalin lahaa. dhankooda mas'uuliyiinta iyo diblomaasiyiinta Soomaaliyeed ee qaybta ka ah wafdiga madaxweynaha ayaa kulamo ku qotoma dib u habeynta xiriirka labada dal iyo iskaashiga waxa ay la yeelan doonaan mas'uuliyiinta dhigooda ah ee dalkaasi. booqashada rasmiga ah ee madaxweynaha ayaa qaadanaysa muddo 3 maalmood ah waxaana wafdiga madaxweynaha qayb ka ah wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah Axmed Ciise Cawad, agaasimaha madaxtooyada Aamina Saciid Cali, la taliyaal iyo diblomaasiyiin sare oo ka tirsan dawladda federaalka. maxkamadda ciidamada qalabka sida ee maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland ayaa maanta xukun dil ah waxay ku fulisay Allah u naxariistay Cabdirasaaq Cumar Cabdullaahi oo ka mid ahaa ciidamada daraawiishta ee Jubbaland kaasoo lagu eedeeyay in hore u dilay nabadoon ku sugnaa magaalada Kismaayo. Shamid Xasan Haaruun ayaa warkan faahfaahinaysa. maxkamadda ciidamada qalabka sida ee maamulka Jubbaland ayaa maanta xukun dil ah ku fulisay Allah u naxariistay Cabdirasaaq Cumar Cabdullaahi oo ka tirsanaa ciidamada ammaanka ee maamulka Jubbaland kadib markii la sheegay inuu hore u dilay nabadoon caan ka ahaa Kismaayo. marxuumka ayay maxkamaddu sheegtay in 27kii bishii dhamaatay uu dilay nabadoon Xasan Goolo oo markaasi uu doonayay inuu dib ugu soo celiyo xerada 12 askari oo godood sameeyay. askariga maanta la dilay ayaa ka mid ahaa 12 askari oo godooday kadib markii ay waayeen mushaaraadkooda. waxaana markaasi ku soo baxay marxuum nabadoon Xasan Goolo oo markaas la sheegay in lagu toogtay meel banaanka ka ah xerada ciidamada waxaana toogashadiisa la sheegay inuu ka dambeeyay Cabdirasaaq Cumar Cabdullaahi oo isagana maanta xukunka lagu fuliyay. ciidamadii kale ee sameeyay gadoodka ayaa sidoo kale lagu xukumay xukunno gaaraya 15 sanadood. Jubbaland ayaa sheegtay inaysan u dulqaadan doonin hadda kadib dilalka iyo waxyaabaha ay ugu yeereen fowdada.
madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa safar la sheegay in uu ku marayo magaalooyinka maamul goboleedyada waxa uu ka bilaabay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. Wariyaheena Maxamed Qaasim Cali Waxar oo magaaladaasi jooga ayaan ka wareysanay. walaasantay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi balaaran uu hogaaminayo oo xildhibaanada labada gole aqalka sare iyo aqalka hoose iyo mas'uuliyiin kale ayaa hadda soo gaaray garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo. madaxweynaha markii garoonka ka soo degay waxa uu hoolka nasashada warbaahinta uga warbixiyay waxyaabaha socdaalkiisa ku saabsanaa isagoona aad uga mahadceliyay sida wanaagsan ee loo soo dhaweeyay iyadoona garoonka ay ku soo dhaweeyeen madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam labayska tegeen xubnaha labada gole iyo qaybaha kala duwan ee bulshada reer Jubbaland ay ku soo dhaweeyeen madaxweynaha intii aan raacay madaxweynihii hore ee Soomaaliya waxa uu sheegay in waxyaabaha uu reer Jubbaland la wadaagi doono uu dib ka hadli doono ama uu ka sheegi doono balse hadda waxyaabaha hadalka inta badan uu ku dhufanayay mahadcelinta reer Jubbaland si loo soo dhaweeyeen isagoona sheegay in waxyaabihii intii dowladda Soomaaliya madaxweynaha uu ka ahaa waxyaabihii uu beeray Jubbaland ay kamid ahayd maadaama federaalka dowladdiisii ay tahay dowladda hirgelisay inta badan Jubbaland ay kamid ahayd maamul goboleedyada ku dhashay arrimaha federaalka. maamulka Puntland ayaa u diyaar garoobaya in doorasho madaxweyne bilowga sanadka cusub ee 2019 ay galaan. dhinacyada diyaar garowga meelaha ugu daran ee laga dareemayo waxaa ka mid ah isbedelada lagu sameeyo hogaanada ciidamada iyo goobo cusub ee ciidamadu ay degeen. Umar Maxamed Soomane ayaa warkan faahfaahinaya. iyadoo wax ka yar 50 cisho ay ka dhiman tahay qabashada doorashada madaxweynaha maamulka Puntland oo xilligan qabanqaabadeeda si weyn looga dareemayo gudaha deegaanadaasi haddana waxa arrimahaasi barbar soconaya howlgalla ay sameynayaan ciidamada kala duwan ee maamulka Puntland. saraakiisha ciidamada oo ka qayb galayay kulamadii aan kala kac lahayn oo ay ku qabanayeen magaalooyinka Galkacyo, Boosaaso, Garowe iyo Qardho waxa ay ku tilmaameen inay ahaayeen kulamadaasi mid la doonayo sidii ciidamada kala duwan ee difaaca Puntland ay kaga hortagi lahaayeen shakhsiyaadka loo arko in ay carqaladeeyaan amniga deegaanada Puntland maadaama la qabanayo doorashada madaxweynaha maamulka. meelaha iminka howlgalka laga sameynayo waxaa ka mid ah deegaanada Sool, Sanaag iyo Cayn oo ay xuduud ahaan wadaagaan maamulada Puntland iyo Somaliland halkaas oo ciidamo tiro badan la geeyay. waxaana saraakiisha ay sheegeen in ay ka hortagayaan shakhsiyaadka ka soo jeeda deegaanada Somaliland oo iyaga laga cabsi qabo in ay carqaladeeyaan doorashada madaxtinimada ee ka qabsoomi doonta magaalada Garowe. sidoo kale ciidamada ayaa sheegay in ay la dagaalamayaan dagaalamayaasha Daesh iyo Al-Shabaab kuwaas oo dhankoodan laga baqtin qabo in ay iyaguna saameyn ku yeeshaan doorashada ka dhici doonta magaalada Garowe. si kastaba ha ahaatee saraakiisha ciidamada ayaa sidoo kale sheegay in ay warbaahinta u soo bandhigi doonaan natiijada ka soo bixi doonta howlgallada ugu dambeeya oo ciidamada ay ka sameynayaan gudaha deegaanada Puntland. waxaana sanad walba marka la gaaro xiliyadan oo kale qabashada doorashada madaxweynaha maamulka Puntland ay ciidamada iyo saraakiishuba ay sii kordhiyaan howlgallada ay amniga ku xaqiijinayaan. wajiga koowaad ee ololaha isxilqaan laguna dayactirayo tiyaatarka qaranka ayaa maanta la soo gabagabeeyay waxaana maanta ololaha haysay wasaaradda gaashaandhigga. Yunis Duraan Cali ayaa warkan faahfaahinaya. wajigii koowaad ee ololaha isxilqaan ee dib loogu dayactirayo xarunta golaha murtida iyo wacyigelinta ee National Theatre ayaa maanta la soo gabagabeeyay waxaana wasaaradii u dambeysay maanta ahayd wasaaradii gaashaandhigga ee xukuumadda Soomaaliya. 26 wasaaradood ee xukuumadda Soomaaliya ayaa dhamaantood waxay yihiin kuwa ka qayb qaatay ololaha dib loogu dayactirayo golaha murtida iyo wacyigelinta ee National Theatre. wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda Soomaaliya oo maanta ahayd wasaaradii 26aad ee u dambeysay ayaa maanta la timid shaqaale ka badan 350 oo iskugu jira ciidanka xoogga, shaqaalaha wasaaradda iyo madaxda sare ee wasaaraddaas oo hogaaminayo wasiirkooda. sidoo kale qaybta baambiyada ciidanka xoogga ayaa waxay ahaayeen kuwa ka qayb qaadanaya dhiirigelinta iyagoo marba muusig kala duwan u garaacayay shaqaalaha ka qayb qaadanaya ololaha dib loogu dayactirayo xarunta golaha murtida.
wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xasan Amar Dambe ayaa waxa uu shacabka ka dalbaday in ay ka shaqeeyaan sidii dalka loo dhisi lahaa. maanta waxaa meeshaan u imaan taariikhdu ay tahay 19 bishii 11aad 2018 inaan golaha murtida iyo madadaalada tiyaatarka aan kaga qayb qaadano isxilqaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waxaa lagu aqoon jiray markay dhibaatada dhacdo inay u gurmadaan maanta iyadoo shacabka Soomaaliyeed ay og yihiin oo annagaanu ognahay in qaybihii institutionadii ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed burburkii dhibaato badan soo gaartay ay ka mid tahay tiyaatarkan loona baahan yahay inaan waxaan rabaa shacabka Soomaaliyeed u sheegaynaa inaan isxilqaanno inaan dalkeena u adeegno inaan amnigiisa aan ku dadaalno in dhibaatada shacabka ku wajahan oo nafteena iyo maalkeena iyo cirdigeena aan u xurno. Maryan Aadan Amiin oo ah agaasimaha xafiiska ra'iisul wasaaraha arrimaha bini'aadanimada ahna u xilsaaranaha xarumaha dib loogu dayactirayo ololaha isxilqaan ayaa waxay warbaahinta u sheegtay in tirada ay ku yimaadeen shaqaalaha wasaaradda gaashaandhigga oo u dambeysay 26 wasaaradood ee xukuumadda Soomaaliya ay ka duwan yihiin wasaaradihii hore. wasaaradda gaashaandhigga oo ugu dambeysay wasaaradihii dalka waa wasaaradii 26aad ee hawshan ka soo qayb gasho waxay saaki waa berigii ugu bariyay gobolkood ayagoo dhex fadhiya tiyaatarka annagoo ka maqan waxa yimid ciidan tiradiisa 250 gaaraysa abaanduulahoodii oo hor socdo waxa yimid shaqaalihii wasaaradda oo ku dhawaad 100 ah oo liiskooda iyo fanaanadahooda wato aad iyo aad ay u mahadsan yihiin ma arag tirahalahaas leeg intii aan shaqadaan hayno wasaarad ku timaado wiliba ayada is howlgeliso oo maamulkeeda wadato wasiirkii horkacaayo oo garabkayga midig taagan aad iyo aad u mahadsan yahay wasiirka saraakiisha taliyayaasha unugyada taliya kooxeedyada maareeyaha xarunta golaha murtida iyo wacyigelinta National Theatre Abwaan Ismaan Cabdullaahi Guuro oo isna dhankiisa hadlay ayaa waxa uu sheegay in wasaaradda gaashaandhigga ay soo bandhigtay maanta xooggii lagu yaqaanay. maanta waxa socota howl weyn oo lagu farxo wasaaradda gaashaandhigga maanta waxay soo bandhigtay awooddii Ilaahay siiyay ee Soomaalidu ay ku tuqeenay ayay maanta soo bandhigtay xooggii Ilaahay siiyay ayay ku soo gabagabayday hawshii waayahan wasaaraduhu ay ka wadeen golaha murtida iyo wacyigelinta waxaan leenahay geeska iyaga uu guulaysta Ilaahay haydi guuleeyo awooddiina waa aragnay Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa sida aad qashinkii iyo haddii alla guureen wixii dhex yeelay tiyaatarkaada cagta u mariseen inaad cadawgana cagta u marisaan hubka cadawga guba waa kuwa gorto goor iyo ayaa gucla rooraye gobanimadayada geeshka ahay waxay ku galaan waa inaad marka gobanimadeenna geeshka ahaya insha allah waxay noo galaan waa u gudi doonaa allah ka abaalmariyo. keenin Muqdisho ayaa warkan kala socotaan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay wararka imaanaya waxay sheegayaan hadda uu socdo shir jiraayid ay qabanayaan guddiga doorashada madaxweynaha Koonfur Galbeed waxay doorteen gudoomiye ku-xigeen iyo xoghaye waxaana sidoo kale la filayaan maanta ay ku dhawaaqaan shuruudaha iyo sidoo kale jadwalka doorasho ee madaxweynaha Koonfur Galbeed oo la filayo in dabeeqada bishan ay dhacdo sida xubno kamid ah guddigu ay sheegeen laakiin natiijada rasmiga goorta la qaban doono waxa la filayaa in shirkan jiraayid ee hadda ay qabanayaan madaxda guddiga qabanqaabada madaxweynaha Koonfur Galbeed ay ku cadeeyaan wixii warar arintan ku soo kordha page-keena ayaa kala socon doontaan iyo wararka iyo barnaamijyada kale ee soo aadan. Xuseen waa mahadsan tahay warka duhur ee keenan ay dhageysanaysaan dhageystayaal akhbaaraadka caalamka ayaa inoo harsan. duulimaad raaxa leh degdegsiimaya ammaano Air Djibouti u doono. waayahay dad diidan muhaajiriinta ayaa maanta waxay isugu soo baxeen magaalo ku taala waddanka Mexico boqolaal ruux ayaa qaaday wadooyinka magaalo ku taala xuduudda Mexico waxayna dhigayeen mudaharaad ay ku diidan yihiin muhaajiriin doonaya inay Mareykanka u sii gudbaan mudaharaadayaasha ayaa muhaajiriinta waxay ku boorinayeen inay ka baxaan magaalada Tijuana la yiraahdo ay u gudbaan koonfurta gobolka California ee Mareykanka dadka gale magaalada ku taala xadka Mexico ee Mareykanka u dhow ayaa sidoo kale waxay qayb ka ahaayeen maanta dadkii dibadbaxa dhigay iyagoo doonayay inay Mareykanka u gudbaan oo ay ka baxaan waddanka Mexico dawladda Mareykanka ayaa si weyn waxay u adkaysay xuduudda ay la leedahay dalka Mexico gaar ahaan gobolka California oo ah meel ka mid ah meelaha ugu badan ee looga soo gudbo waddankaasi waxayna dhigtay ciidamo celiya qaxootiga waddanka Mareykanka doonaya inay galaan